السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan kusoo gudbinayaa sida ugu fudud ee computerkaaga loo baqtiin karo adigan steps dheer raacin ama aan tegin meel fog hal button kaliya sida looga baqtiin karo. waxaan imanaynaa meel banaan oo computerkaaga halka banaan baynu imanaa right click baan siinaynaa new baan ka dooranaa new marka ka doorano shortcut baan si dooranaa halkan bay noo soo baxaysaa shaashadan markay noo soo baxdo halkan waxaan ku qoranaa shutdown space -s space kale -t space kale 20 space kale -f. inta markaad dooratid waxaad kasii dooranaysaa next. halkan baa waxay ku qoraysaa halkan shaashada markay kusoo baxdo waxaad ku qoraysaa shutdown. inta yarada ma kuma saxin shutdown kaliya markaad ku qortid waxaad siinaysaa finish. waxa kusoo baxaysa foldertaas kusoo baxaysa foldertaas markay kusoo baxdo folderta waxaanu ka bedelaynaa iminka say u eg tahay si kale ayaanu bedelaynaa sida tan oo kale nooga muuqato. right click baan siinaynaa properties waan kasii dooranaa change icon baan kasii dooranaa okay baan kasii dooranaa. iminka calaamad baynu saaraynaa baqtiinta calaamadii baqtiinta taasay u egto wata okay baan siinaynaa apply okay. iminka saas ay noogu soo baxdo. iminka haddaan calaamadaas saa u yara taabto computerka soo baqtiyaya isku jiidanaysaa halkan baa soo dhiganaysaa. iminka tan baa iska saarayaa ambi maata iska odhanayaa tan baa soo qaadanaysaa halkan baad keenaysaa wata tan kalena recycle bins ka tuur. iminka haddaan calaamada taabto saas computer ku baqtiya waa sida ugu fudud ee loo baqtin karo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.